بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu kusoo jirnay barashada softwareka Autodesk AutoCAD waxaan soo gaarnay jabtarka saddexaad cashirkiisa lixaad cashirkan waxaynu oga hadli doonaa mirror function mirror ayaan oga hadli doonaa mirror wuxuu ku jiraa modify group home tab mirror waxa weeye function aad iyo aad u muhiimsan waxa uu kuu sahlayaa ama kuu suura gelinayaa in aad shaqo aad qabatay mid la mid ah uu ku garab dhigo tusaale ahaan laba guri oo mataana ayaad sameynaysay midka koowaad balaankiisa ayaad samaysay isagoo kale intaad samayn lahayd ayaa si toos ah aadna dan mirror dhahdo ayaad garab dhigaysaa marka waa function wax badan kuu fududaynayo insha allah waa isla arki doonaa innagoo samaynayno tusaale ahaan waxaan haysanaa albaabkan baan haysanaa waxaan rabnaa albaabkan mid la mid ah inaan garab dhigo haddaba saan u sameeyo highlight ayaan saarayaa waxaan doorayaa mirror waa kana mirror marka mirror shortcutkiisa waxaa weeye mi weeyaan marka mirror leh wuxuu ku leeyahay command function specify first point or mirror line inta ayaad imaanaysaa waad soo wareejinaysaa markaad soo wareejiso kadib inta ayaad keenaysaa then waad ku xiraysaa then enter waa ujeedaa albaabka mid la mid ah ayaan dhanka midiga ka dhignay sidaas la mid ah haddii guri villa inta aad ku samaysay oo mid kale asaga la mid ah ku samaynayso soo wax walba adoo u dhammaystiray ayaad wili siinaysaa ood garab dhigaysaa waxaan filayaa inaad fahamteen mathalan haddii aan raba inaan masaafo aan ka fogaado kana kale hadda offset aan baxo 0.2 haddii aan raba intaanoo kale inuu u jirsado asagana waan samayn karaa highlight saar then waxaa samaysaa mirror soo dooro linekan yaa waxaan rabaa inaan inta ka garab dhigo asagoo masaafadii aan u jirsaday 0.2 ahaa uu u jirsanayo inta imaanayaa then waa soo wareejinayaa waa kasaa waxaa weeye waa isla albaabkii waxaanse u sameeyey distance masaafo ah intuu kan u jiro kana u jirso waxaan filayaa inay caddahay si fiican loo fahmay haddaan ku tuso yani masaafada aan baxnay markaa 0.2 waaye kana waa la mid haddaan hoos kaa tuso waa kana isagana 0.2 weeyaan hagaag si aad si fiican ugu sii fahamto hadda rectangle-kan ayaan samaystay mid asaga la mid ah ayaan rabaa inaan garab dhigo si sahlan ayaa waxaan samaynayaa mirror highlight saaro then inta imow soo wareeji marka muhiimadda uu leeyahay mirror kaa weeyaan in shaqadii aad laba jeer qaban lahayd isagii mid la mid ah aad garab dhigtid weeyaan waxaan si fiican ugu fahmaynaa haddana muhiimadda uu leeyahay mirror mathalan labadan qol ayaan samaystay albaabkaas ayaana u sameeyey albaabkan waxaan rabaa inaan qolkaana albaabkan aan u sameeyo intaan albaabkan aan dhisi lahaa isla kan ayaan rabaa inaan mirror dhaho oo inta aan keeno anoo masaafadaas ilaalinayo waxaan samaynayaa marka highlight saar then mirror dheh inta imow marka ani hore aan u cabirtay masaafadan iyo masaafadan waa isla eg tahay marka waxaan samaynayaa intaan imaanayaa albaabkan baa leeyahay inta iigu soo gedi bas inta imow waa kasaa then waa ujeedaa shaqo kale oo qaban si sahlan ayuu iigu sameeyey labadii albaab marka mirror muhiimaddaas ayuu leeyahay waana function aad u sahlan oo modify group ku jiro waxaad samaynaysaa oo keliya highlight baa saaraysaa objectiga waad imaanaysaa meesha aad rabto inaad mirror ka dhigto ayaad ku qabanaysaa isla markii uu kuu samaysmaya waxaan filayaa in la fahmay any question aad qabto waxay soo weydiin kartaa it's very easy in la mirror gareeyo objectiyada intaa ku soo koobiyaa wassalaamu calaykum